safarkiisii ugu horeeyay ayuu maanta ku gaaray madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen magaalada Markacadey ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaana si diran magaalada ugu soo dhaweeyay xubnaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala gedisan ee magaalada Marka. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa goob fagaaro ah kula hadlay dadweyne ku soo dhaweeyay magaalada waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarka magaalada Markacadey. sharaf iyo farxad bay noo tahay inaan maanta aan nimaano degmada Marka oo ah magaalada madaxda gobolka Shabeellaha Hoose oo ah magaaladii ganacsiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah magaaladii xadaarada iyo ilbaxnimada koonfur galbeed oo ah magaalo Soomaaliyeed magaalo dad walaalo ah oo Soomaali ah oo isjecel oo dowladnimada jecel oo wanaagga jecel oo horumarka jecel ay degan yihiin ah magaaladii dadkii ugu xadaarada badnaa Soomaaliya ay degan yihiin ah oo horey noo sheegay sharaf weyn noo tahay waana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idiin imaano oo midnaagno oo degmada Marka aan soo booqanno aan ka fiirino wax alla iyo wixii ka jiro horumarka iyo habka ka socdo degmada Marka sharafay noo tahay waana waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweyntii diiranay ee aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga degmada Marka oo ugu horeeyay maamulka gobolkii maamulka degmada iyo shacabka degmada Marka aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa noogu soo dhaweyseen degmada Marka ayagoo waqtiga kulul yahay oo xilli kulul lagu jiro yaa waxaa go'aansateen inaad madaxweynihiinna iyo madaxdiinna iyo jacaylka aad dowladnimada u qabtaan inaad kulaylkan u taagnaataan saacado tiro badan waan kaga mahadcelinaynaa meel gooni ay noogu qoran tahay waana waxaan madaxweynaha ayaa sidoo kale xarig ka jaray dhismaha mashruuca leerarka cadceedda ku shaqeeya oo magaalada uu ka hirgeliyay maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marko ayaa u muuqata mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii ay u geysteen dagaaladii sokeeye ee soo maray magaalada. Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.